kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada xubinta rays iyo wararka caalamka. saacadii ugu dambeeyay qunsuliyadda Jarmalka ay ku lahayd Israa'iil ayaa nin hubeysan weeraray iyada oo muuqaalkan arkaysaan ay tahay qunsuliyadda oo rasaas ay ka dhaxdhacayso. wararkii ugu dambeeyay iyo macluumaadka bariga dhexe la xiriira waxaa stuudiyaha koobaad ee rays ugu sugan Cabdinaasir Xirsi Iidle oo ah wariye rog cadaa ah sidoo kalena bartay xiriirka caalamiga si gaarana u falanqeeya arrimaha bariga dhexe. Iidle, Israa'iil waxay wajahaysaa cadaadis xoogan waxaana mar kale la weeraray qunsuliyadda ay ku lahayd dalka Jarmalka. waa maasantahay shacab arintani oo weerarka loo geystay magaalada Munich oo kamid ah magaalooyinka ugu weyn dalka Jarmalka ma aha wax la bixinsado barkii ama sababtu waxay tahay yuhuuddu waxay dhibaato ku hayaan mujtamaca islaamka oo dhan. waxaad la socotaa Falastiin iyo Gaza waxa ka socda inay tahay wax aan loo dulqaadan karin. maalin walba duqeynta iyo laynta iyo burburinta iyo caburinta iyo cadaadiska lagu hayo shacabkaas masaakiinta macnaha waa wax qeyr caadi ma waa qeyr caadi waa wax bini aadanku aqbali kara ma adduunka oo dhan waxay ku tahay fadeexad ku tahay in dagaalkaas hal sano socda oo aan wax guul laga gaarin oo aan wax military la baabiinin oo aan taliso ciidan kala qabsanin ee maalin walba islaan iyo cunug iyo oday waayeel laynayo in laga qarsado waa fadeexad weyn. marka dhibaatadaas yuhuud ay ku wado iyadana waa xaqiiq loo geysanayo. hadda Munich ka hadlaysaa waxaan rajaynayaa maalmo soo socda in Washington iyo New York iyo London meelaha ay ku leeyihiin la galo. sababtan waxay tahay waa dhibaatadaas iska daa dadka Falastiiniyiinta ah dadka macnaha Kristaanka ama yuhuudda adduunka la jooga ayaa la qilay waxa ka socda Gaza iyo meelo badan kamid ah Falastiin oo Rafax kamid tahay oo magaalo xotiya oo ku dhawaad 2 milyan oo qof oo maata ay degan tahay oo maalin walba laga yoreenayo maray duqeyso maray weerarto maray raashin goosto gargaar goosto. tan shalay waxaan ka hadlaynay in ay caruurtii booliyada ama ay ku dhacday dabaysho laga talaali waayo oo leesay oo la joojiyay dadaaladii meesha ka socday oo caruurtaas yaryar ee masaakiinta curyaaminta rabay in lagu badbaadiyo oo hay'adihii qaramada midoobay kuwa maxalliga ah kuwa caalamiga ah internationalka ay isaga bixin magaalada Gaza dhanba oo la duqeyntaas on loo aabeen marka madfac la soo tuuro ma kala yaqaan ninkaana shiiqay ninkaana gargaar dhaqday ninkaana reegal badan ninkaana masaakiin ma kala yaqaan uma diro badan. marka weerarka Munich waxaan leeyahay wuu sii socon doonaa inkastoo hadda wararka hore ay yihiin oo hadda ay bilow tahay horta ninka waddanka soo jeeda lama sheegin rasaasta way socotaa muddo 30 daqiiqo ayaa hadda laga jooga inta weerarku socdo. arrintan way sii socon doontaa tani inta Israa'iil ay joojinayso gumaadka ay ku hayso maalin walba shacabka Falastiin. marka fariintan ma la dhihi karaa ama dagaalkan jawaab waxay u tahay dhalinyaradii ama caruurta yareed ee shalay Israa'iil laba calaamad isweydiinaysa ma he maalinkay soo bilowday 7 Oktoobar yuhuuddu weerarkii ay soo qaaday Gaza iyo Falastiin ay ku bartilmaameedsanayeen dadka reerka xog galabsan ayuu jawaab u yahay waa xaqiiq waa mana hadduu xataa fulin masiixi uu fuliyo xataa waxa waaye wuxuu yahay jawaab la kala waxayna u tahay inay kuwaana qaadato oo joojiso gumaadka faraha badan oo aan loo aabayeelin ay ku hayso dadka shacabka Falastiin oo caruurta leh oo haween kale oo dadka da'da leh haddii maalin walba askari Xamaas ka tirsan oo hubeysan haddii disho waxba looma arkay maanta laakiin waxay dilaysaa waxa gaalada u yeerto innocent waa qof aan wax dambiye gelin ay maalka salaysaa. marka jawaabtan iyo jawaabo kaleba iyo magaalooyin kale talaabada kama tahay waad arkaysaa in la galo waad arki doontaa maalmo waa karta. marka qunsuliyadaha Israa'iil waxa leedahay waxa saaran culays badan qunsuliyad kalima xataa safaaradu waxay fulisaa siyaasadda fulisaa qunsuliyadu waxay fulisaa arrimaha bulshada ee mujtamacaas meesha ku nool. markasta safaaradda waxa aada wixii uun siyaasiya uun baada laakiin meelaha mujtamacyada iyo nikaaxa warqadaha iyo dhalashada meelaha laga qaato dhan oo la isugu yimaado ugu dadka badan waa qunsuliyadaas. marka safaaraddu way ka adag tahay qunsuliyadda laakiin qunsuliyaddu waxay ka mujtamac badan tahay safaaradda ka mujtamac badan tahay. marka waa sababta loo beegsanayo maadaama la og yahay dad badan oo yuhuud inay joogaan saacad kasta. waa gartay dhinaca kale Mareykanka wuxuu eedan u jeediyay Iidle Ruushka oo doorashada dalkaasi ah eedantaas maxay u tiran kartaa arintani ma aha arin cusub oo afyeenka qalqacad uu soo sheegay shalay kilinkii dambe waliba uu sheegay uu leeyahay waxay markii hore ka qaban xisbiyada labada xisbiga dalka Mareykanka oo badan xisbiga la yiraahdo dimuqraadiga xisbiga la yiraahdo Republicanka hadda dimuqraadiga haysta carada waa xisbigii Soomaalida aad ay ugu badan tahay dadkan waa dadka minority dadka u heliya way maadaama Soomaalida yuhuudda xataa isaga jiraan iyo qaniisantii balaaga dhan isaga buuxda waa xisbi adiga dadka taagta daran taageera halka xisbiga Republicanka uu yahay xisad isku filan oo dhaqaale haysta aaminsan dadku inay shaqeystaan caafimaadkan lacag laanta la bixinayo iskoolada lacag la bixinayo ayrahan la bixinayo wax dhan oo ka soo horjeeda xilli qofku inaad ka shaqeysto marka si loo fiiriyo
xisbiga raganimada iyo saxda waa xisbiga Republicanka laakiin xisbiga kale oo minority-ga iyo wax dhan balaayo dhan ay ku wada jiraan waa xisbiga Dimuqraadiga marka xisbiga Dimuqraadigu talooyinka Mareykanka inta badan asaga hayay haddana asaga haya Trump oo sanadkii hore 4 sano hore laga qaaday xilka ayaa haddana mar kale taagan marka Trump wuxuu la tartamay gabadhii Hillary Clinton la tartamay marka dad badan adduunka dhan jamacada waxay la yaab noqotay in uu guuleysto Trump marka doorashada Mareykanka waxa la rumaysan yahay inta badan ba marka ay soo baan xisbigaas inuu ku shubtay oo xoogaa la aaminsan yahay Bush iyo raggiisa kamid ah senior Bushki iyo Bushki ka yara iyo ninkan Trump ka ayo marka Ruushka waxa lagu eedeeyaa marka Trump Ruushka oo la ogyahay Mareykanka inuu cadowgiisa koobaad adduunka inuu xiriir la sameystay si doorashada aan looga shuban Dimuqraadiga waxa waa farsamo badan yihiin doorashada marka kombiyuutaradaas iyo waxaas la qaldaa teknolojiyad rag waxa la adeegsadaa adduunka oo khubaraha la adeegsadaa marka Ruushka maadaama uu khubaro yahay Trump wax uma xadin laakiin waxa la sheegaa inuu u adeegsaday inuu u waardiyeeyo inaan la xalin kombiyuutaradaas inaysan dhaqdhaqaaqin macnaha oo aan macnaha meesha yihiin oo codka suuyaha u dhaco marka Trump guuleystay fadeexada ku noqotay marka dad badan marka waxay dhaheen Mareykanka iyo reer galbeedka ahay Mareykanka oo Dimuqraadiga adduunka ugu horeeya wuxuu diiday inay naaga xukunto ama gabadh xukunto taasina ma dhicin marka in maanta afayeenka aqalka cad oo Dimuqraadi uu eedeeyo Ruush wax ay soo kordhayso ma jirto mana aha idintii koobaad Trump ayaa wuxuu ku eedeysan yahay inuu Ruushka la seexday heshiis waxaad ilaaliyo oo doorashooyinkii ku shubtay ama wuxuu ilaaliyay ilaa hadda wax la qaaday ma jiraan marka Mareykankii oo hadda aqalka cad ay joogaan Dimuqraadiyiintu wax ay soo kordhinayso eedeyntaas ma wax iska caadi ah waa gartay dhinaca kale ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska waxa uu Ukraine ku eedeeyay in ay dhalinyaro iyo caruur qasab ay askaraynayaan ninkaasi Mr Johnson Boris Johnson wuxuu noqday xildhibaan oo ahaa wuxuu noqday markii hadda oo la kala bedelay waxaan Brexit loo yaqaan markii Ingiriisku uu ka baxay wadamada Yurub oo goonida u go'ay waxay kamid ahayd wuxuu kamid ahaa ra'iisul wasaaraha faraha badnaa meesha Soomaaliya 3 4 ra'iisul wasaare Soomaaliya meesha maadaama lagu fashilmay oo ninkii odaga ahaa ku bilaabay uu xilka isaga tagay oo liberalka uu ka baxay conservative-ka uu yiri aniga hadii aan ka baxay Yurub ma sii wada kan Ingiriiska oo asilay wuxuu ahaa gabar baa Theresa May timid Theresa May hadana asaga Boris Johnson yimid waa sii baxay hadana midkii kale Hindiga yimid waa sii baxay hadda kii shanaad ay maraysaa arrintaas Ingiriiska waxay ku noqotay fadeexad ku noqotay marka Boris Johnson markaas dagaalkii Ukraine bilaabanayay wuxuu ra'iisul wasaare talada Ingiriiska markaas ay goday marka waxa la yiri isaga wuxuu fashiliyay heshiiskii Ukraine ee leedahay wadamada reer galbeedka arrintaasna marka wax la biciso ma aho waxay ku tusaysaa inuu hadda yiraahdo Ukraine ciyaalka ama dhalinyarada la qasbay hal la joojiyo waxay ku tusaysaa dagaalka Ukraine in Europe ay Mareykanka ku fashilmeen fashilkaasna wuxuu yahay Ruushkiisa u bacdi kar macnaha waxa la yiraahdaa waa qowda maqashay waxna u qaban Ukraine waxay kuleen waa ku taageersanay financial lacagti iyo siyaasadda loo taageersan ma ahay hubki iyo dagaalki iyo la gilitaanki wax dhan ma la joojinayo marka Ingiriiska iyo Mareykanka labada wadan waxay reer galbeedku awood badan Mareykanka koowa Ingiriiska laba siyaasadda Ingiriiska markii hore hogaami jiray hadda wixii dagaalka ka dambeeyay siyaasadda Ingiriiska waxay la wareegtay Mareykanka soo akoo noqday ee meesha Ingiriiska laga heeyay jiray hadda Mareykanka laga heeystaa arrintaas marka waxay ku tusaysaa marka sida Mareykanka iyo reer galbeedku Ingiriiska ka yahay aysan taageerada dhab uga ahayn in Ukraine taageeraan in Ukraine dagaalkii galiyaan haddana uga baxeen haddana hadda ay dhahaan dhalinyarada ha qorin waa fadeexad soo cusboonaatay waxay u muuqataa in Ruushka guuleystay Ruushka bariyahan laga yaabana oo isna maalin intii dagaalku uu rabay inuu ku soo afjaro aan ku gaarin waxay muuqataa haddana fadeexadii reer galbeedka ay ku taageereen Ukraine oo hadaad in banaanka soo baxday